ninkan aad arkaysaan waa siyaasi Cali Gurey maanta waxaa miiska inoo saaran siyaasi Cali Gurey oo isagu ahaa roog cadda hore oo kulmiye ah laakiinse maanta ka baxay noqday roog cadda kale oo ku biiray xisbiga wadani bal haddaba hadaladiisii marka uu taageeriyay xisbiga wadani bal waxa uu ku taageeriyay iyo hadallada maanta uu ku hadlayo aan wax yar dul istaagno eesi ninka qurahe maanta marxaladda adag dalkan ka saari karaan ciraha cambaha amaha waa iska dhaaf ninkaasi hadduu xilka ummadda qabto inuu baa rajaleedin maadaama baradhadana isaga wartii dekada isaga laga saxeexday tii hore ay ahayd dekada tan airbortkan isaga la marsan labadaba ciraa la marsan waar muuse weydii isaga dagaal arkaysaan waxa uu inoo sheegay siyaasi Cali Gurey inuu yiri ninka maanta loo dooranaya dalka ee la dhaho Ciro waxa laga saxeexday dekadii waxa laga saxeexday airportkii waxa weeye wax walbaba nin laga saxeexan karo weeye isagoo ku tilmaamay inuu yahay nin iska camba sidoo isagoo hadalkiisa ka dhawaaji haddaba Cali Gurey waxaan oran karnaa ma shalay buu waalnaamise maanta u meer qaba su'aasha imanaysa waxa weeye ninkii shalay toole aad ummadda la soo hor istaagaysay ee aad lahayd ninkaas inta waayo marka wax laga saxeexdo ama wax dawladeed ama wax ummadeed marka laga saxeexo waa arrin aad u weyn weeye siyaasigu waxa weeye shakhsi ahaantiis wax uu dhunsan karaa lacag uu qaadan karaa laakiinse markuu arrimo masiiriya oo ummadda reer Soomaaliland ka dhaxeeyo oo isagu gacantiisa ku saxeexo bal maanta oo kursiga dalka loo dhiibo intee in leeg ayuu saxeexi karaa ninka aad ku tilmaamtay inuu jilicsan yahay hadalka jawaabtiisana adiga laga sugaya sida uu sheegay madaxweyne Muuse Biixi wuxuu yiri dagaal baa la gelaya haddaba hadalkii madaxweyne Muuse Biixi wuxuu ka soo qaaday hadal ruwaayada isagoo ka dhawaajiyo yiri dalka wax cadow ah oo nagu soo duulaya haba yaraatee ma jirto dagaal baan abaabulayaa kana la qaaday dagaalku waa kii waray nagu soo qaaday inaga gooch cadda waa bishii gooch cadda la galay hadda bishani waa August cidina soo weerarayso cadowhina ma jirto marka waxa ka sii liita ku marxaatiga caray xiisaab la daba socdo meena arag war labada nin yaa naga soo qabta oo magaceennii beddelay haddaba isla isagii waa siyaasi Cali Gurey ayaa hadalkiisu haddana isburinaya wuxuu leeyahay dalka cadow badan baa ku soo duulay meel kastana waa leena ka faganaya bal waa tan dhageyso isla qodbadii isla goobtii uu taagnaa ayuu laba jeer ummadda been ugu kala sheegaya dad Soomaaliland maanta waxay u taagan tahay waa doorasho dhigahaasina wax kale ma maqli karaan oo aan doorasho ahayn dhinac walba cadow baa ka soo galay dhinac walba waa laga fagayaa taad arkaysaan dadka reer Soomaaliland waa dad intooda badan iska foorara khaasatan dadka codka bixiya waa dad maalin walbaba siyaasi intaasoo sano siyaasadda ku soo jiray maalin kasta shaar cusub soo gashanayo maalin kasta urur cusub soo samaysanayo maalin kasta xusbi cusub ayuu ugu jiraa waa isla isagii waa isla anigii oo maalin walba magac gooniye wadana shacabkana waa noo tumaysaa markaad aragto siyaasiyiintu markay hadlayaan inta badan kama hadlaan wax qabadka ummadda u qaban doonaan ee inta badan waxay ololo uga dhigaan eedda ay u jeedinayaan siyaasi kale oo kursi ku fadhiya haddii aad tartamo tahay iyo haddaad tahay qof madaxweyne u tartamaya iyo haddii aad tahay qof kursi kale oo dawladeed u tartamaya lagaagama baahna inaad ummadda eed la soo hortaagnaatee war adigu maxaad qabanaysaa maxaase isbeddel oo miiska kuu saaran ay tahay doodaadu laakiinse in maalin walbaba inaga loo ka dhigo khaasatan dhalinyarta reer Soomaaliland in maalin kastaba olole lagaaga dhigo ee madaxweynaha caydiisa xukuumadda caydooda yani in waxa olole lagaaga dhigo maanta Ciro waa nin kursiga ku cusub waa nin doonaya inuu tartamo waxa weeye siyaasiyiin kala ku xeeran mar walba ay hadlayaanna miiska ma soo saaraan dalkan isbeddelka u baahan iyo waxyaalaha la doonayo in wax laga qabto miiska ma soo saaraan iyo qaabka ay doonayaan inay mataqaanay siyaasadooda iyo in dalkan wax sidii qaabka wax uga qaban lahaayeen miiska ma soo saaraan maalin kasta waxay noo soo hortaagan yihiin eedda Muuse Biixi iyo dawladda maanta jirta in garanaysa eedeynteeda ayaa olole siyaasadeed lagaga dhigaya taana adiga isku khasbay
dadkii waa la fahmay qorigooda la qabtay waxaaba la ogaadayba yani adigu uma baahnidba in miiska lagu soo saaro wax qabad ee kaliya waxaad u baahan tahay in qabyaalad iyo eedayn iyo cay kaliya miiska lagu soo saaro kan gaajadu haysa waa adiga kan waxbarashada u baahan waa adiga kan doonaya mataqaana inuu dalkiisa iyo dadkiisa ay hormaraan waa adiga weey dhalinyarta reer Somaliland maanta looma baahna siyaasi anaga noo qodbadeeyo maanta looma baahna siyaasi ololo nooga dhiga siyaasi kale mataqaana ceebihiisa ee ceebaha sidoo ku dabooli lahaa iyo qaabku wax ku qaban lahaa miiska ha soo saaro isagu aad baan salaamaya muuqaalkana shisheer